No justice. Ahmed Madoobe down. Ahmed Madoobe down. Annagoo aan dhalinyaradii Jubbaland waxaan iskugu soo baxnay inaan codkeena cadeeno warqadii dawladda federaalka ay soo saartayna aadaan ooga xunnahay madaxweyne Farmaajo nidaam xumadii villa Soomaaliya ka dhacday aadaan ooga xunnahay annagoo dhalinyaradii Soomaaliyeed oo dhalinyaradii Jubbaland waqtigii iyo naftii iyo dhiigii naga baxay uma qalmato in warqad la soo saaro la dhaho Ahmed Madoobe ayaa 2 sano kale la aqoonsaday Ahmed Madoobe ma aqoonsanin mana doonayno madaxweyne Farmaajo waxaan ka codsanaynaa warqadii la soo saaray markii aad ka tagtay wadanka oo adiga iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka marka baxdeen warqadii orodka lagu soo saaray waxaan codsanaynaa maadaama madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed aad tahay codkeena inaad tixgeliso oo codkeena aqbasho oo Ahmed Madoobe aad diido Ahmed Madoobe annaga waa diidnay mana doonayno Ahmed Madoobe Kenya ku hayso Kismaayona Nairobi ma aha Muqdishona Nairobi ma aha sidaas darteeda Muqdisho waa Kismaayo sidaas darteeda mudan madaxweyne waxa ka codsanaynaa inaa codsigeena tixgeliso Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan rabaa inaan xasuusiyo 8 Febraayo wuxuu ku imaaday doorasho xor iyo xalaal ah Ahmed Madoobe waxaa laga rabaa saas la mid ah inuu ku imaado doorashada oo ku imaaday Farmaajo haddayse ahayn madaxweynaheena waa suub magaalada Muqdisho ayaa waxa isugu soo baxay shacab diidan Ahmed Madoobe oo igu taageeraya shacabkii codka isiiyay qaar ka mid ah waxaana rajaynaynaa magaalooyinka degmooyinka idil oo Jubbaland inay ka banaan bixi doonaan ayagoo muujinaya diidmada Ahmed Madoobe tan kale waxaan rabaa inaan cambaareeyo UN-ka inaan cambaareeyo dawladda federaalka waxyaabaha aan ku cambaareynayana waxaa ka mid ah in ay xayeysiiyaan oo maanta ay barmood gareeyaan oo xayeysiiyaan inay qiyaano qaran qof sameynaya ay dhahaan wadanka xoog ku haysto maxaa yeelay Kenya dhahaysa maxaa la dhahaa awood siinaysa waa ayaan daro waxayna sameynaysaa oo taa ku boorinaysaa inay dhalinyarada yar yar ka ahayd intay aamini lahaayeen inay shacabkooda kasbadaan oo wadankooda u shaqeystaan ilaa waxa loo shaqeeyo waa shacabkee inay wadan shisheeye inta tagaan ay awood ka soo qaataan ay wadanka wuxuu rabo u qabtaan ay dhahaan maxaa la dhahaa ummadda xoog baan ku haysanaynaa waana waxa aan ka dhiidhinayno oo aan u istaagsannahay oo aan aniga u qaatay codka shacabka inaan arrintaa ka qaado